barnaamijka kobciye waa barnaamij tixano ah kana kooban 30 qaybood kuwaasi oo taabanaya nolosha qof kasta oo naga mid ah. Kobciye waa daqiiqado kooban oo kobcinaya naftaada ha u dayman la'aan. Waa diyaarintii iyo soo jeedintii al-ustaad coach Maxamed ibn Umar. bismillaah walxamdulillaah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillaah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawaada barnaamijkeennii kobciye iyo cashir cinwaankiisu yahay ogolow naftaada. kasoo qaad inaad muraayad soo iibsatay oo aad rabto inaad isku fiiriso subax kasta marka aad bannaanka u bixi rabto. kadib muraayaddii ay bilowday inay naftaada foolxumayso oo mar kastoo isku fiiriso foolxumo uun soo bandhigayso, maxaad samayn lahayd? inaad jijibiso oo aad qashinka ku qubto, qashinqubka ku darto, soo maahan? waxaanad dhihi lahayd war muraayadan waa indhool, waayo waxay soo saari la-dahay qofka dhabta ah ee aan ahay iyo quruxdayda. ma aragto quruxda ee bigu galadeystay aan leeyahay oo wayba i foolxumaysay, waxayna iga dhigtay ruux kaloo aada u foolxun. mana ahan muraayad ku habboon adeegsi, waana inaan beddelaa. sidaas ayaad u hadli lahayd, soo maahan? ma ku fakartay weligaa in muraayadaas oo kale ay ku jirto gudaha qof kastoo inaga mid ah, taasoo had iyo goor u soo bandhigta inuu yahay ruux aan qiimo lahayn oo fashilma mar kasta oo aan waxba qabsan karin, horumarna gaari karin, dadkoo dhammi kasoo horjeedaan isaga uun sidai loo hagardaamayn lahaana dadku uun ka wada shaqaynayaan. ka waran sawirka noocaas ah haddii aad muddo ka haysatay naftaada, kuna salaysay go-aamo badan oo aad qaadatay kuwaasoo laga yaabo inay dhib fara badan ku keeneen. sawirka noocaa ah ee aad naftaada ka haysato waxaa loo yaqaanaa muuqaal maskaxeed. ruux walbaana naftiisa uga samaysma, wuxuuna noqdaa mid wanaagsan oo ku dhiirigeliya ama mid aan wanaagsanayn oo cuqdad nafsi ku geliya. Lewis Hill oo ah qoraa ayaa waxay tiraahdaa, adduunka wuxuu soo bandhigaa waxaad tahay. haddii aad naftaada necab tahay, wax kastoo kalena waad nacaysaa. mararka qaar dad ayay la gaartaa inay naftooda gooyaan, allah ayaan ka magangalnay. laakiin markaad jeclaato naftaada oo sida ay tahay ku ogolaato, adduunka oo dhan wuu kula qurxoonaanayaa, mustaqbal wanaagsan ayaana kuu soo ifaya. taa macnaheedu ma ahan in la iska indhatirayo ceebaha nafta ama meelaha ay kabidda uga baahan tahay, ee waa in sidaas lagu aqbalo, si deganna loo horumariyo ayadoon la nacaynin nafta. waayo ruux aan lahayn nuqsaan ma jiro, ruux aan lahayn ceebo ma jiro, ruux aan horumar u baahnayn, naftiisuna aanay u baahnayn in la dayactiraa ma jiro. dagaalkii Maraykanku ku qaaday Vietnam ayaa faryahanka Maxamed Cali Kalaay Allah u naxariistee lagu amray inuu ka qayb galo dagaalka, wuuna diiday. markaas ayaa wixii darajooyin iyo maaragtay horumar uu ka sameeyay feerka ee uu ku helay garaado laga xoobiyey, waana loo diiday inuu ku cayaaro inta badan gobolada Maraykanka gudihiisa ah. taas waxay keentay in dhaqaalihiisa hoos u dhac uu ku yimaado, daymankuna ku bataan. waa uu fakaray marka ayuu yidhi, wallaahi xal aan ahayn inaan la feertamo George Foreman ma leh. Foremanna waa nin aad uga jir dhisan Kalaay, kana xoog badan, xataa ka shacbiyad iyo taageerayaal badan. laakiin Kalaay ma haysan xal aan ahayn inuu ninkaa la feertamo oo ay fooda isdaraan si uu u soo baxo islamarkaana naftiisa u tuso qiimaheeda. waxaa la isku afgartay halka lagu qabanayo feertanka oo waxaa laga dhigay wadanka Zaire ee Afrika ku yaala, haddana loo yaqaano Koongada Dimuqraadiga ah. Kalaay bil ka hor ayuu usii ambabaxay goobtii feertanka. maalin kastaana wuu soo bixi jiray si uu u layliyo naftiisa, isuguna diyaariyo maalinka ballanku jiro. waxaa la gaaray maalinkii feertanka, waxaa bilowday feerkii. Foreman wuxuu bilaabay inuu si xun u dilo Kalaay, laakiin Kalaay ayaa keenay qaab cusub oo ah mar kastoo feer uu ku dhaco inuu isku tuuro xarkaha ku xiran meesha lagu feertamayo si uu ugu adkaysto feerka adag ee ku dhacaya. 12 wareeg ayaa loo garaacay aad Kalaay. wareegii u dambeeyay ayaa waxaa soo jilcay oo dabcay Foreman. markaas ayuu Kalaay bilaabay inuu garaaco ilaa uu ka raayay. Kalaay muxuu sameeyay?
kalaay wuxuu bedelay aragtidii uu ka haystay naftiisa. kalaay wuxuu leeyahay haddaad rabto inaad haliyey noqoto waxaa lagaa rabaa inaad taas aaminto oo ay kaa dhaadhacdo in naftaadu haliyey tahay. haddaadan ahayn dhab ahaanna waa inaad u dhaqantaa iskana yeeshaa sida ruux haliyey ah. waxaa soo qaadanaynaa qodobo dhowr ah oo kugu caawin kara inaad naftaada ku qanacdo kana raalli ahaato. qodobka koowaad ayaa ah naftaada jeclow. waxaan maqli jirnay dadka kale ha isjeclaadaane ma nafteenna maanta jeclaanaynaa? haa, waa sidaas. soo qaado warqad iyo qalin oo waxaad qortaa 3 wax oo aad naftaada ku jeceshahay iyo 3 wax oo aad naftaada leedahay oo ay naftaadu leedahay faanna ku dareensiinaya iyo 3 waxyaalood oo hadda ka hor naftaadu ku guuleysatay inay samayso. intaba diiwaan geli. sida adeega ama badeeco aad iibsanayso aad u xayeysiin lahayd oo kale, badeeco aad adigu suuq geynayso u xayeysiin lahayd oo kale, naftaada tilmaamaha wanaagsan ay leedahay ku xayeysii oona isku qanci. shaki male ruux walbo naga mid ah in ilaahay ku manaystay awooday tilmaamo wanaagsan. ayagaas ku fakar sidii aad u ogaan lahayd naftaadan ugu muujin lahayd. qodobka labaad, xulo afkaartaada. ku dhawaad 60,000 oo fikrad ayaa soo marta maskaxdaada maalin kasta. intooda badanna waa fikrado lasoo celceliyey sida muuqaal aad daawanaysay oo dib u celisay oo kale. waxayna ka kooban yihiin waxyaabo badan oo kaa guuxayay iyo waxyaabo cusub intaba. waxaad samaysaa inaad bedesho afkaartaas marka aad dib u daawato oo aadna u hagaajiso qaab wanaagsan oo naftaada anfacaya, sawir qurxoonna ka bixinaya naftaada. markastoo fikrad xun kugu soo dhacdo ama wax hoos u dhimaya naftaada, isla markiiba ka joogso ku fikirkooda iyo siiraacooda ama dharaadhintooda iyo dabagalkooda intaba. arrinku aad uma dhib badna, hase ahaatee wuxuu u baahan yahay la qabsi iyo ku celcelin iyo sabar. qodobka saddexaad aan dhehe ayaa wuxuu isna yahay u dabaaldega guulahaaga. dadkeennu inta badan ma sameeyaan inay u dabaaldegaan guulaha naftooda soo hoydo. waxaase ogaataa in qayb weyn uu ka yahay raalli ahaanshaha nafta iyo aqbalaadeeda. maalinkii aad iskuulka qalin jebisay waa guul. maalinkii aad shahaadada qur-aan xafidka lagu siiyo qur-aanka dhamaysay waa guul. maalinkii aad jaamacadda dhamaysay waa guul. maalinkii ganacsigaagu faa'iido badan keenay waa guul. kulli waa maalmo aad u qiimo badan. haddaad u dabaaldegto naftaadana ka abaalmariso way kuu duubmaysaa qiimaha naftaadu leedahay. dib ayaadna ka dareemaysaa dhiirigelin iyo nafta oo ku dhaqaaqda guulo waaweyn oo adduun iyo aakhira wax ku tara. guulaha aan u dabaaldegayno waxaa laga yaabaa inay mararka qaar yihiin kuwo yaryar, laakiin annaga aan ka dhigayno wax macno ku fadhiya. sababtoo ah haddaanay jirin guulaha yaryar lama gaareen kuwa waaweyn. ha ka sugin in qof kale uu u dabaaldego guushaada ama uu dhiirigeliyo naftaada. adigu iska saar mas-uuliyadda koowaad naftaada, islamarkaana noqo qofkii abaalmarin lahaa. qodobka 4 ayaa wuxuu isna yahay inaad ogaato awoodahaaga. qodob aad u wanaagsan oo xoojin kara kalsoonida uu qofka naftiisa ku qabo weeyaan. islamarkaana qofka aan aqoonin baraha ay ku xogan tahay naftiisa waxa uu ku nool yahay mugdi oo wax badan ayaa ka dahsoon. isweydii maxaad ku fiican tahay, isbaro adigu. ma waxaad awood u leedahay hadalka iyo jeedinta iyo sida dadka wax loogu sheego? ma waxaad ku fiican tahay farshaxanka iyo naashnaashka iyo qurxinta, mise waa cod qurxoon tahay oo codkaaga ayaa dadka wax wanaagsan ugu raaxaysa? intaas way ka badan yihiin awoodaha iyo hibada ee badadku siiyey. waase tusaale. baar halka aad ku wanaagsan tahay awooddaaduna ku xoogan tahay. markaas ayaad helaysaa jawaabta ah maxaan kaga soocanahay ugana fiicanahay dadka kale, taasoo xoojin doonta kalsoonida naftaada aad ku qabto. qodobka 5 ayaa isna wuxuu yahay ka digtoonow burburyaha aamusan. ma taqaanaa burburyaha aamusan? waa inaad weyso qiimaha naftaada agtaada ka lahayd oo aadan naftaada ku faani karin. waa marka aad qof kale la barbardhigayso naftaada, weliba barbardhig qaldan oo xadgudub ku ah iyo cadaalad darri. sababtoo ah qof walba ilaahay wuxuu siiyey qaab asaga u gaar ah.
ku dayo dadka wanaagsan adoon isu ekaysiinayn, kana faa'iidaysa aqoontooda, khibradooda iyo afkaartooda wanaagsan, laakiin hasla barbardhigin marnaba. maxaa yeelay ruux walba wuxuu leeyahay muhiimad ka duwan kan kale, ruux walbaana waxaa loo fududeeyay wixii loo abuuray, siduu nebiguba yidhi. haddaba ruux walba wuxuu leeyahay kaalinta u gaarka ah ee nolosha uu ka cayaarayo, iyo duruufihiisa nololeed ee u gaarka ah, iyo awoodo u gaara intaba. Dr. Ibraahim Alfiqi, Allah u naxariista, ayaa wuxuu sheegaa 3 dilaa ah oo ay kala yihiin iscambaaraynta, oo ah inaad naftaada had iyo goor aleba cambaarayn ula taagan tahay iyo dhaleecayn, wax wanaageeda ahna aadan soo hadal qaadaynin kuna ammaanaynin marnaba. eedaynta oo qodobka labaada, oo ah inaad badiso cabaadka iyo eedaynta nafta iyo oo ay yaraato qanaacada aad naftaada ku qabto. ha eedayn naftaada, laakiin la xisaabtan, gafafka ay gashana 10 ku noqdeen. qodobka saddexaad ee dilaaga isagana wuxuu yahay barbardhiga, oo ah in naftaada la barbardhigto dadka kale, kuna miisaanto miisaan aan keeda ahayn ee gardarri ku ah. naftaada ayada uun isla barbardhig wixii ay qabatay shalay, maanta sida ay tahay iyo sida mustaqbalka aad la damacsan tahay. mahadsanid. diiwaangeli wixii aad faa'iiday, isku day inaad dhaqan geliso, siina faafi.